Soomaalida waxyaabihii hidaha iyo dhaqanka u ahaa way ilowday. Geedkaas rabayna weydiiyo. Kollay inteeda badan ma garanayso laakiin waa u sharaxaya. Waa kana marka hore afar xabo ayuu ahaa. Haddana waa 3 xabo. Xabadii kale waan cunay. beerkiina waan ka cunay. diirkii korona waan ka cunay. waa talaftiisii. waa taas. waa kuwaas. raqdiisii waa taas kii la cunay. kuwii kalena waa kuwaas. kollay Soomaali badan ma garan doonto. waxay la yaabtay inay noqon doonaan. ummadda Soomaaliyeed waxa dhulkeeda ku yaala oo nibcada oo Ilaahay ka beeray oo ay calfan laadahay. nibcadaas ka mid ah in badan ha sheer garayso wala sii sheer gareeya. lagna saar commentigiina noo reebo waa muhiim inaan helo. waa kan saana leeyahay. laf adag buu leeyahay. waa kan waa kaas beerkaasaa ku jira. waa kaas noqday. waa kaas saasuu noqday. waa kaas asagoo la diiray. markii kalena waa kan. waa kaas. waa kaas timirtii u egyahay. labadiiba waa kaas. midna waa diiran yahay midna waa caadi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamay ummadda Soomaaliyeed. waxyaabo ay dunuubta la guuray oo khayraada oo dunuubta la nabaad guuray baan idiin hayaa saaka. geedkan inaan ii sharxaan rabaa. waxaa la yidhaahdaa goosay. waa kaas timir buu u egyahay. waa midho Ilaahay dhulka ka soo saaro oo nibcada Ilaahay ummadda uu siiyey ka mida. waa kaas geedkaasi timir buu u egyahay. waana nibcooyinka Ilaahay. waagii hore waddanka aad bay ugu badnaayeen. kollay Soomaali badan baa garan doonta. aad buu waddanka ugu badnaa. hadda laakiin dhif iyo naadir buu ku yahay. sababtuna waxaa weeye waxyaabaha dunuubta Soomaalida ka dhacaysa ama dunida ka dhacaysa ay la nabaad guureen oo saasaa dhif iyo naadir ka dhigtay. isticmaalkiisana waa idiin sharixi doonaa insha Allah.